In Somalia, Nagaad means prosperous settlement. This, in a country that experiences frequent and severe climate-related shocks and protracted conflict, which have internally displaced nearly 3 million people. To help cities cope, the Nagaad Project strengthens local government capacity in 6 municipalities so that they can better deliver climate-resilient urban infrastructure and inclusive development. In Garowe and Baidoa, municipal governments invest in projects that can bring the most economic and social advancement to their cities. wadooyinku waxay la socdaanin horumarka degmada Garowe. meelaha hore aan loo gaarsiisnay in laamigu gaarayna oo guryaha laga dhisana intaas ka kordha maalin kasta waxa ku kordha inta oo goobo ganacsi ah. 10 roads have been built in Garowe and Baidoa with street lighting and pedestrian walkways that make the cities more accessible and safe. With increased mobility around the cities, economic activities has increased. والله ما شاء الله ودون تلد سورت ميل راي قناع سجن من فيل هذه الدجاجات يوقع الرأي جبلون كقمنا ما شاء الله دينا فيلين ما شاء الله نورك والبضن أنا وصايد هايون همين كبو جي نسبة دلي ما شاء الله. With investment, Nagaad helps Somalia cities deliver better urban services, integrate vulnerable groups and empower them. In Garowe and Baidoa municipalities ensure that some construction job for civil works employ women and internally displaced persons or IDPs. This helps change traditional expectation for what women and IDPs can do. wadooyinka hadda laamiyada aan haysano subax walba waxa ka shaqeeya 120 dumar ah oo nadiifiya kanaalada fura wixii qashina ka qaad ayada laftiga waxay u tahay dumarkaasi dhaqaale abuur bay u tahay oo waxay ka qaataan mushahar ay ka qaataan marka bulshadu marka la sameeyo taladeeda iyo ka qayb qaadashadeedana waxay ka yihiin dhinac marka waxa ka shaqeysan shaqo nadaafad ah laakiin shaqada waxaan ka helay bulshada kaanka joogto saas ay tahay shaqadii waan bartay oo waxaan noqotay xirfad aan bartay shaqadii nadaafada lacagtii ka helay lacag badan inaan ka helay marka hore waan ka xishoonay inaan dhagax ka shaqeeyo laakiin markii dambe aan arko inay lacagteeda badan tahay waan ka shaqeeyay macnaha waan bartay. More communities are expected to participate and benefit from the Nagaad Project. By strengthening municipal government to provide better governance that empowers and prioritizes people, cities can become more resilient to future shocks. With IDPs and women integrated into the fabric of cities, prosperous settlement is possible. This is the heart of the Nagaad Project.